Assalaamu calaykum kusoo dhawaada mar kale iyo kanaalkeena theory iyo casharada aad ooga barateen calaamadaha waddada insha allah cashirkan waa cashirka hore qaybtiisa labaad wuxuuna ka hadlayaa boorarka ama calaamadaha waddada aanwijsingsborden waa calaamadaha ama tilmaamaha waddada insha allah yacni macnaha aanwijsingsborden waa boorarka ama calaamadaha tilmaamaha boorarka wax ku tilmaamaya insha allah haddii aan ku bilaabo insha allah boorka inoogu horeeya ama calaamadda inoogu horeysa wuxuu dhahayaa insha allah verhoogd inrichten boorkan waxaa loo yaqaanaa verhoogd inrichten ama calaamaddan waxaa loo yaqaanaa verhoogd inrichten oo soomaalida badankeeda u taqaan askari jiifo waa dhismo yar oo yar kuusan oo laamiga dhexdiisa lagu sameeyey waxay u taqaanaan soomaalida askari jiifo waxaana loogu talagalay in xawaarahaada haddaad gaari wadato yacni aad dhinto ama lagu yareeyo insha allah haddaan u gudubno boorka xiga ama boorarka xiga waa saddex boorood ama saddex calaamad oo isku mid ah midka koowaad haddaan ku bilaabo insha allah dood lobendeweg waa waddo dhimanayso waddo soo dhimatay waxay ka dhigan tahay haddii aad gaari wadato aad waddadan gasho in aad waddadan ku waddo laguma diidana waad gali kartaa laakiin la soco waddadan meel kale aad ooga sii baxdo ma lahan because halka sare way ka xiran tahay yacni waddo kale aad ooga sii baxdo yacni ma jirto so marka waa dood lobendeweg waddo dhimanayso ama soo dhimanayso insha allah kan xiga waa the same ama waa isku mid dood lobendeweg waddo dhimanaysa waaye laakiin markii laga reebo dadka soconaya iyo baaskiilayaashaba macnaha muu aha ayaga dood lobendeweg adiga haddaad gaari wadato waxay ku tahay dood lobendeweg waddo soo dhimanayso meel kale aad ooga sii baxdo ma lahan haddii baaskiil aad wadato ama haddii aad tahay qof soconaya keliya haa waad kasii bixi kartaa dood lobendeweg waddo dhimanaysa outgezonderd markii laga reebo voetgangers dadka soconaya and fietsers iyo baaskiilayaasha kan xiga waa isku mid dood lobendeweg waddo dhimanaysa rechts laakiin dhanka midigta doorkan meel looga baxaya leedahay dhanka midigta meel looga baxaya leedahay insha allah calaamadda xigta boorkan kiisa kale hore usoo qaadanay insha allah meesha shaqaa laga hayaa ama waddada waxaa laga hayaa dhismo midkan wuxuu dhahayaa dhismihii ama shaqadii hadda wuu dhamaaday einde van der werke einde van der werke shaqadii way dhamaatay la soco boorka xiga ama calaamadda xigta overstake plats meel la gooyo for loogu talagalay voetgangers dadka soconaya si kale waxaa loo yaqaanaa zebra badka ama zebraha overstake plats meel la gooyo for loogu talagalay voetgangers dadka soconaya ama dadka lugeynayaba calaamadda xigta overstake plats meel la gooyo ama la maro ama marin ah for fietsers oo loogu talagalay baaskiilayaasha overstake plats for fietsers meel la gooyo ama la maro looguna talagalay baaskiilayaasha calaamadaha xiga insha allah rightstroke vermindering kan dhanka bidix jira waxaa la dhahaa rightstroke vermindering leenka la yareeyey langs dhanka links bidix boorkan wuxuu ka hadlayaa laba leen ama laba rightstroke oo baabuurta lagu wada ayaa jirta laakiin midka bidixda ah wuxuu ka baxayaa qadka yacni wuu soo dhamaanayaa waxaa lagu leeyahay kan oo dhanka midigta ah gal so marka rightstroke vermindering waxaa la yareeyey rightstroke ama leenkii ee dhanka midigta gal waxaana laga soo yareeyey leenka dhanka bidix kan xiga waa the same rightstroke vermindering langs rechts waxaa la soo yareeyey leemankii ama leenkii waxaana laga soo yareeyey dhanka midigta waxaad gali kartaa ama lagu gala inaad gasho leenka dhanka bidix xiga ayaad ku wadi kartaa gaarigaada calaamadaha xiga wuxuu dhahayaa kan begin fietsstraat waa bilowga waddada baaskiilka kan dhanka bidix xiga waa begin fietsstraat waa bilowga waddada baaskiilka waddada baaskiilka haddii aad ku socoto
waxaa lagaa rabaa haddaa gaari wadato waa lagu ogolaya inaad ku socoto laakiin xawaarahaad inuu ka bato 30 kilomitir saacadii ma aha baaskiilayaashana inaad baas garayso mise dhaafto laguma ogola kan xiga Einde Fietsstraat waxaa kaa dhammaaday waddadii baaskiilka waad ka baxaysaa calaamadda xigta Snelheidsbeperking xawaaraha la xadiday per rijstrook halkii leenba ama halkii rijstrookba waa waddadan wadda highway ah 3 rijstrook mise 3 leen ayay leedahay leenka dhanka midig xiga haddaa ku socoto xawaarahaada inuu ka bato 70 kilomitir saacadii lama ogola kan dhanka dhexda yaala haddii aad dhexda ku socoto waxaa lagaa rabaa 90 kilomitir saacadii inuusan ka badanin xawaarahaada midka ugu bidixsan ama dhanka bidix xiga waxaa khuseeya marka xawaaraha markaasi highwayga si guud ahaan loogu talagalay mindha 120 ama 100 wax la mid ah insha Allah boorarka ama calaamadaha xiga waxay dhahayaan kan ugu hore dhanka bidix xiga begin van een lage emissiezone waxaa ku bilowday aagga ama meesha loogu talagalay in baabuurta wasaqda tufaysa ama wacnaha wasaqda yacni qaaca wasaqda ah sii daynaysa looguma talagalin inay halkani galaan waxaa loogu talagalay waa centerka magaalooyinka haddii aad galaysa yacni magaalooyinka qaar ma ahan magaalo kasto laakiin magaalooyinka qaar waxaa la ogol yahay baabuurta inaysan qaac badan sii deynin yacni wasaq badan inaysan ka bixin haddii aad ogtahay in gaarigaada uu sii deynayo wasaq badan waxaa laga mamnuucay inaad gasho centerka oo magaalada begin van een lage emissiezone waxaa ku bilowday meeshii la oran jiray lage emissiezone yani meeshan waxaa khusaysa dadka baabuurtooda qaaca yar sii daynaya inay galaan kan xiga waxaa kaa dhammaaday meeshii lage emissiezone ahayd dadka oo loo diidanaa inay meeshan galaan hadda yacni wuu ka dhammaaday way macna ka baxayaan oo kale Einde van een lage emissiezone waxaa dhammaaday aaggii oo khuseeyey qaaca hooseeya ama qaaca yarida ayaa dhammaaday insha Allah calaamada xigta Wegwijzer waa tilmaam ku tilmaamaysa wegomleiding in yacni lagu hagayo boorka ama boorarkan jaalaha waxay khuseeyaan yacni in wadda lagaa soo hagay wadda kaleta lagugu hagay oo ah yacni waddada tii hore aad taqaanay waxaa ka socota dhismo waxaa lagaa soo hagayaa waddadaasi tu kale oo yacni lagugu talagalay inay ku geyso meeshaa rabto ayaa lagugu hagayaa taa ayaa loo yaqaanaa marka wegomleiding boorarkan jaalaha ama huruudda waxay badanaa khuseeyaan dhismaha waxaana loogu talagalay in ay kaa hagaan meel kaletana ay kugu hagaan insha Allah midka labaad waa sidoo kale wegomleiding waa lagu hagayaa oo kaliya haddii aad rabto Antwerpen magaalada loo yaqaana dhanka bidixda u leexo boorka xiga vermindering yareen la yareynayo van het aantal rijstroken dhowrka rijstrook ama dhowrka leen oo loogu talagalay baabuurta inay ku socdaan hadda waa lasoo yareynaya leenka ugu midigsan ama dhanka midig xiga wuxuu ka baxayaa qadka soo labada leen oo dhanka bidix xiga inaad mataqaanad ku biirto ayaa lagaa rabaa calaamada xigta doorsteek marin ama meel la gooyo oo ah midhaberam yacni waddadan waxaa loo yaqaanaa ereyga yacni midhaberam dhexdani ayaa loo yaqaanaa adiga dhankan ayaa ku socotay midha waxaa lagu leeyahay marka inaad dhexdan marto ama aad goyso waa lagu ogol yahay taas ayaa loo yaqaanaa midhaberam yacni midhaberam waxaa loo yaqaanaa dhexdani ayaa loo yaqaanaa normally ama caadi ahaan in baabuurta lagu wado lama ogola laakiin haddeertaan inaad dhex jeexdo ma dhex marto waa lagu ogol yahay boorka xiga ama calaamada xigta Plaatsnaam boord boorkan wuxuu ka hadlayaa kaliya ama uu sheegayaa magaalo ama meel magaceeda waa Plaatsnaam boord ma aha inuu ku dhahayo
meeshii dhisneed ama magaalada dhisneed ayaa galaysaa ma ahan wuxuu kuu sheegaya keliya magaaladan yani magaceeda inay taasi tahay wax kaleeto oo khuseeya ma laha calaamada xigta verkeer toegelaten verkeer toegelaten gaadiidka waa loo ogol yahay in beide richtingen labada jihoodba inay ka socdaan yani go and back horay gadaal yani laba leen oo horay ah iyo laba leen oo back ah waa hal wado oo 4 leen lah laba waa go labana waa back so labada dhinacba in loo wada socdaay waa la ogol yahay boorkan insha Allah waa kii noogu dambeeya hadduu Ilaahay idmo aankondigen waa tilmaam ama sheegid lagu sheegayo outwiking inaad weecato oo aad ka weecato right-stroke ku socotay mise lane-kii ku socotay oo aad u weecato dhanka kale outwiking yani aankondigen in lagu tilmaamayo mise lagu sheegayo outwiking inaad weecato right-stroke inaad ka weecato ayaa lagu sheegaya insha Allah tacaala boorarka oo idil oo Belgium intaas ayaan kusoo koobeyna hadduu Ilaahay idmo boorar yaryar kaleeto aan loo baahnayn way jiraan laakiin halahaasi ayaan ku ekeenayna insha Allah waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysteen insha Allah tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu